Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada filim gaaban oo ka hadlaya doorka uu leeyahay macalinka iyo mas'uuliyadda weyn ee ka saaran waxbaridda ardaydiisa. Filimkan oo dhan wuxuu ku saabsan yahay sheekada gabadhan yar oo lagu magacaabo Shirley. Shirley waxay u fadhidaa imtixaanka dugsiga sare, waxayna galaysaa maadada juqraafiga oo ay aad ugu dhiban tahay. Muuqaalka wuxuu ku bilaabanaa macalimadda oo ardayda iyo Shirleyba ku amraysa inay soo dhiibaan waraaqadaha maadaama uu dhammaaday waqtigii imtixaanka. Kadibna waxay arkaysaa in Shirley aysan ka shaqaynin wax su'aal ah. Maalinka xiga, Shirley oo aad u murugaysan isla markaana ooynaysa waxaa u imaanaya macalimadeeda, waxayna weydiinaysaa sababta ay ugu shaqayn weyso su'aalihii imtixaanka. Kadib Shirley waxay u sheegaysaa macalimadeeda inay ku adag tahay maadadan juqraafiga ah. Kadib macalimadeeda waxay xil iska saaraysaa sidii Shirley ay wax u baran lahayd, waxayna siinaysaa waqti dheeraad ah oo ay wax ku fahansiiso si ay ula mid noqoto ardayda dhigata kalaaskeeda ee ku fiican maadada juqraafiga. Waxaa xoogaa yar dib u soo laabanayo kalsoonida Shirley, waxayna ka qayb qaadanaysaa wax walba oo ay ardayda samaynayaan, haddii ay noqoto siminaarada iyo tababarada loo aado iskuulka banaankiisa. Waxayna Shirley markaas wixii ka dambeeya isku arkaysaa hami iyo jacayl waxbarasho oo aysan horay u dareemi jirin markii hore, iyadoo imaanaysa iskuulka aroortii hore. Iyadoo lagu jiro galaaska, waxay macalimadda u yeeraysaa Shirley si ay u weydiiso su'aal ku saabsan casharka markaas la qaadanayo, waxayna si geesinimo leh Shirley uga jawaabaysaa su'aasha ay macalimadda weydiisay, wayna farxaysaa. Macalimaddana waxay isbeddelkeeda ka wareysanaysaa Shirley. Kadib waxaa la gelayaa xilliga roobabka, waxayna Shirley maqlaysaa hooyadeeda oo ka cabanaysa roobabka iyo cimilada, waxayna si scientifically ah Shirley hooyadeeda ugu sharxaysaa xilliyada roobka yimaadaan iyo xilliyada jiilaalkaba, waxayna dareemaysaa farxad. Kadib macalimaddu waxay ardayda ka qaadaysaa imtixaan quiz ah oo ku saabsan maadada juqraafiga. Shirleyna waxay imaanaysaa kalaaska iyadoo faraxsan, qabtana rajo wanaagsan. Macalimaddana waxay ardayda la wadaagaysaa natiijada imtixaankii quiz-ka ahaa. Shirleyna waxay la yaabaysaa natiijada ay ka keentay quiz-kan maadaama ay keentay 40 buundo. Natiijadan waxay Shirley ku noqotay mid ka naxaysa sidoo kale ka farxisa, waxayna galaya shaki ah in macalimadda ay u naxariisatay. Kadib waxay raadinaysaa macalimadda, waxayna su'aalaysaa sababta ay ku keensatay 40 dhibcood. Waxayna macalimadda u sheegaysaa in ay ku keensatay 40gaas dhibcood dadaalkeeda, loona baahan yahay inay sii dadaasho si ay u keensato dhibcooyin intaas ka sii badan. Shirley markii ay maqasho weedhaas waxay dareemaysaa farxad, waxaana galaya kalsooni aad u ballaaran. Shaki kuma jiro inuu haysto dhibkaan kumanaan ka mid ah ardaydeena Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada ku yaala dalka, gaar ahaan ardayda dhigata dugsiga hoose. Sidoo kalena ma helaan macalin u kurgala xaaladooda gaarka ah iyo baahiyaha ay qabaan. Waxaana muuqaalkan oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee Singapore ka baran karnaa in macalinka uu noqdo macalin u kurgala xaaladaha gaarka ah ardayda ay qabaan si uu u dhismo mustaqbalkooda, keliyana uusan ka fikirin mushaarkiisa. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, u shargalay saaxiibada, sidoo kalena like saar muuqaalka, subscribe na saar channelka si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah.